dadaala nadaafadda dad yahow tanteeniye dariiqyada magaalada indhuhu daawan bilicdooda iscilqaan dadkaygow aaday daawo ku tahay maamulka dawladda hoose magaalada Boorama oo halku-dhigoodu ahaa hanti dhigno Boorama magaalo nadiif oo lagu noolaan karo ayaa howlgal dhinaca nadaafadda ka sameeyay xaafadda Sheekh Cismaan ee galbeedka magaalada Boorama. Howlgalkan ayaa ahaa mid qashinka lagaga guriyay xaafadda ayaa waxa ka qayb qaadanayay shaqaalaha dawladda hoose ururada arrimaha bulshada iyo shirkadda qashinka ee Horseed. waxaana howlgalkan horkacayay agaasimaha arrimaha bulshada dawladda hoose magaalada Boorama. waxaana howlgalka kadib warbaahinta la hadlay agaasimaha arrimaha bulshada dawladda hoose magaalada Boorama mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cumar waxaana uu bulshada ugu baaqay maanta waxaan campaign olole nadaafadeed ku qaadnay xaafadda Sheekh Cismaan beerta ilma Daahir Cabdalle campaignka waxa ka qayb galay dawladda hoose Boorama shaqaalahooga shaqaalaha shirkadda Horseed ardayda Soosto ardayda kale Hafayoko ardayda Kuwait ee farsamada ay maalgeliso ama ay hay'adda concern waxa lagu nadiifiyay qashin aad u farbadan oo yaalay mar walbana ololaha la qaaday oo aan joogteynayno khamiis walba dadweynaha jaarkana waxaan leenahay inay ka daayaan qashinka ay ku soo gurayaan goobtan oo ay saaraan shirkadda Horseed oo diyaar u ah cidda caadaysatana waxaanu ka qaadi doonaa tallaabo sharciya. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shirkadda Horseed oo nagala soo qayb gashay campaignkan ardayda ka socota saddexda iskool ee Hafayoko Kuwait oo qaybta farsamada iyo Soosta aad bay u mahadsanyihiin aad baan ugu bogaadinaynaa. waxaanay noo ballan qaadeen mar kasta oo aan qabanayno campaign inay nagala qayb qaadan doonaan. waxayna keeneen arday mudakariina oo 200 ku dhow marka tiradooda aan isku darno. aad iyo aad bay u mahadsanyihiin. Cabdirasaaq Cumar Macadowliyo magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal.